ugu dambeeyay suuqyada waaweyn ee Soomaaliland lagu arkay tubaako nooceedu ku cusub yahay Soomaaliland oo hore looga aqoontaasi oo dhawaan dalka soo galisay shirkad gaariyay waxa tubaakadin oo lagu magacaabo Tay wafdi oo lagu farsameeyay dalka dibadiisa gaar ahaan sida qoraalka ku cad dalka Sweden tubaakadin oo nooca afka la gashado loo isticmaalo sida buuriga iyadoo la dhigay daanka ay saameeyeen noogati ka badan tahay sigaarka iyo buuriga waxaana tubaakadin oo ay dalal badan ka mamnuuceen wadamadooda markii ay saameyn baahsan ku keentay dadka danyarta iyo dhalinyarada waxbarashada ku jirta kuwaasi oo si xad dhaaf isticmaalkeeda u badsaday isla marhaantana ka dhaxlay xanuuno kala duwan oo igu horeeyaan wadna xanuun iyo kansarka khatarta ay ku dhaca sanbabada iyo wadnaha hase ahaatee soo dejinta tubaakadani khatarta badan ayaa markii ay dalka Soomaaliland soo galisay buuq farbadani ka dhashay taasi oo dhalisay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyadda ismaandhaaf ka dhaxdhalisay wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland maalmo ka dambeeyay tubaakadani wadanka soo gelin ay soo saartay qoraal isburinaya oo markii hore dalka kaga mamnuucday inaysan dalka soo gelin tubaakooyinka khatarta badan ee la isticmaalo halka maalmo kadib lagu xanibay tubaakadani ka timi wadanka Sweden madaarka magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ay soo saartay warqad burinaysa tii ka horeysay sheegaysay in laga mamnuucay guud ahaan dalka tubaakada nooc kasta oo ay tahay iyadoona ay kadib wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland soo saartay warqad lagu ogolaanayo inay dalka soo gasho tubaakadani Tay wafdi ka timi wadanka Sweden intaasi kadib asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland ayaa buuqaasi sidoo kale khilaafkaasi soo kala dhaxgalay labada wasaaradood ka hadlay iyagoona ay ka hadleen xaqiiqda tubaakadani Tay wafdi ka timi wadanka Sweden ay ku xaninayd waqtigaasi madaarka magaalada Hargeysa Cigaan International Airport xisbiga mucaaradka ayaa arintaasi si weyn u dhaliilay isagoona wasaaradda ganacsiga iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda ku eedeeyay inay arintani ka dambeeyeen dalka soo gasho tubaakadani Yuusuf Kaysi Cabdullaahi xogayaha warfaafinta ee xisbigaasi oo warbaahinta la hadlay waqtigaasi uu taagnaa muranka soo gelinta dalka tubaakadani ayaa waxa uu sheegay wasaaradda ganacsiga ay hore u mamnuucday tubaakooyinka kala duwan ee khatarta badan leh ee dalka soo galaya inay mamnuuc ka yihiin isagoona arintaasi ku tilmaamay inay wasaaraddu burisay qoraalkii hore ay soo saartay isla marhaantan hadda ay ku ogolaatay qoraal cusub oo ah inay dalka soo gasho tubaakadani haatan ku xaniban madaarka waxaynu ka warhaynay oo muddo weeyga in TV-yada ka daawanayay siiba waliba TV-ga Ariel tubaako laga soo dejiyo madaarka oo ku xanibnayd tubaakada wasaaradda ganacsiga waxay ka soo saartay warqad ay leedahay dalka lama soo gelin karo waxay soo saartay 13 bisha afraad 2020 isla haddana 2020 18 warqad kale ku fasaxaysay soo saartay labadii warqadoodba waan hayaa waa kuwan maan doonay maanta inaan ka jeclaano inaan ka hadalno arrinta waayo dalku wuxuu ku jira xaalad dagaal laakiin waxaan u arkay inay tani muhiim tahay oo xaalad dagaal oo kale iyaduna ay tahay sidaa muhiim bay noqotay inaan ka hadlo waayo waxaynu la dagaalamaynaa xanuun isla xanuun kale waxaan qabaa in daaya dalka sidaa daraadeed warqadda saxiixkaaga simuu soo saaray waa tan wasaaraddu marka caynkaayna tiri ganacsigu warqad kale haddana soo waxay tahay ujeedda siideyn tubaako kadib markaanu eegnay shahaadada ay sitaan mulkiilayaasha tubaakada kor ku xusan oo hore wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiisku u xayirtay taasoo xaqiijisay caddayn baarineed oo ka soo baxday tubaako.com LT product buu ku leeyahay of Kenya shahaadadaasoo caddaynaysa in la isticmaali karo tubaakadan sidaa daraadeed waxay wasaaraddu laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 18 bisha afraad fasaxday isticmaalka tubaakadan ويسلو وزاردي ويسلا أجاسمه بطاهر قري تنا قري هذا هو حال كان باقو قدر يا حكومة ومدحونه وجوه الريو وحال كلام باقو قدر يا هذا دورستا طيارة قرنك سومالي الله وصل حير 68 حير نمبر 68 2014 وشيء قرنك وجم مسؤولة لباتوينك يا أفوينك أي كان كان
alaabaha iyo hadday cunto tahay hadday dhar tahay hadday wax kastoo la isticmaalayo tahay waxaan leeyahay waa duulaan lagu soo qaaday dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland isku soo wada duuba shirkadda soo dejisay tubaakadan ayaa maalmihii ugu dambeeyay si xawliye ugu qaybinaysay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland gaar ahaan goobaha ay bulshadu ku kulanto sida makhaayadaha shaaha lagu cabo marfashada lagu qaylo iyadoo ay dhalinyarada iyo dadka kaleba ay ku siineysay si free ah ama lacag la'aan ah waxaanay ujeedada lagu qaybinayay tubaakadani ay ahayd sida ay bulshadu loo bari lahaa isticmaalka iyo sidoo kale cunista tubaakadani isla marhaantaana ay hadhow tula bulshadu u adeegsan lahaayeen una iibsan lahaayeen tubaakadani iyadoo ay mamnuuc ka tahay dunida hay'adda caafimaadka adduunkuna marar badan ka soo saartay nuqulo iyo sidoo kale qaraaro la xiriira in gabi ahaanba ganacsiga sida sigaarka xashiishada amaba buuri tufaaxa iyo wixii la mid ahba geena aan loo samayn karin wax suuq geena amaba xayisiis bulshada loogu gudbinayo adeegsiga ganacsiyadaasi waxaana labadani iminka ay shirkadu soo waariday tubaakada khatarta ay tahay mid ay ku suuq geynayso sidii ay bulshada guud ahaanba loo gaarsiin lahaa si markaa ay la qabsadaan wixii ka dambeeyay ay u iibsan lahaayeen tubaakadani tay wafti isla mar ahaantaana waqti xaadirkani lagu godayo suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa sida dukaamada iyo sidoo kale goobaha ganacsiga dhinaca kale sida ku cad qoraalkani ku qoran bogoska yar ee ku jirto tubaakadani waxaa lagu sheegay in tubaakadani ay ka kooban tahay nikotiin xaddigeedu aad u sareeyo isla mar ahaantaana uu ka fudud yahay in la qabsiga isticmaalkeedu uu u fududaado qofka isticmaalaya waxaana uu si sahlan qofku u qabatimaya isticmaalka tubaakada sababta xanuunada kala duwan taasoo marka dambe sababaysa inuu qofku ku khasban yahay inuu iibsado kana doonto meheradaha lagu godo amaba lagu iibiyo tubaakadani hase yeeshee suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn looga dhex arkayay dhalinyaro la labisay isla mar ahaantaan loo dhibay tubaakadani si firiya u siinaya dhalinyarada iyo sidoo kale dadka ku kulma goobaha ay bulshadu ku kulanto baaritaano kala duwan oo ka sameeyay saameynta caafimaad ee samaysan nooca tubaakadani afka laga qaato ayaa warbixino kala duwan oo ay ka qoreen dhakhaatiirta iyo sidoo kale khubarada daraasada ku sameeyay ay ku bayaamiyeen in tubaakadani ay si degdega u saameyn ugu yeelan karto qaybo kamid ah jirka qofka taasoo marka dambe sababaysa inuu xanuunka kansarka ama wadna xanuunka uu haleelo isku soo wada duubo xukuumadda Soomaaliland ayaan ilaa hadda tubaakadani dalkaas soo galay ay fasaxday wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland wax baaritaan ku sameeyeen iyadoona sida la sheegay aysan soo marin tubaakadani hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland isla mar ahaantaana ay si degdega suuqa ugu baahday tubaakadani isla mar ahaantaana waqti xaadirkani suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa gaar ahaan goobaha ay bulshadu ku kulanto loogu dhex iibinayay iyadoo si free ah ama lacag la'aan ah loogu dhiibiyay dhalinyarada iyo dadka ku kulmay goobaha ay bulshadu ku kulanto maraansaaka u korgalay arrintani ayaa waxa indhahaygu qabanayeen dhalinyaro loo xidhay garamaan iyo sidoo kale dhar ay ku xardhan yihiin magaca shirkadda iyo sidoo kale tubaakadani magaceeda oo qaybinaya tubaakadani isla mar ahaantaana dadka iyo bulshada ku nool magaalada Hargeysa si free u siinaya arrintani ilaa hadda xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adda dhowrista tayada ee Soomaaliland wax wara ka soo saareen ayaa saameyn baahsan ku yeelan doonta bulshada haddii aan laga gaarin